maanta ana markii soo dhamaatay procedure-kii amar lahayd ee golaha wakiilada ugu dambeeyay waxa ku khatimaynaa sida dastuurku tilmaamayo dhaarta marka maanta dhaarta aynu dhaaranay iyo culayskeeda iyo waxaan ku dhaaranay idinkii annaguba waa wax weyn aan ku dhaaranay diinta dalka iyo dadka maanta dadku waxay naga sugayaan ballanqaadyadeenii inaynu fulino ballanqaadyadeennu soo ballan qaaday dadkana iyo adeegyadiina waa mas-uuliyaddeena wada saaran idinkana gaar idiinsa saaran dadku waxay naga sugayaan adeeg kasta oo aynu ballan qaadnay oo xukuumadda ay ka filayaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay biyo hadday tahay caafimaad hadday tahay wado hadday tahay cadaalad marka adeegyadaasna xafiisyadiina ka mas-uula marka shacbiga wuu ina eegayaa wuu ina qiimeynayaa wuu inala xisaabtamayaa doorashooyin dambena waynu ka sugaya marka shacbigu maxkamad baynu saaranay marka waxaynu u baahan nahay inaynu u dulqaadano shacbiga hadda iyo dhaliishooda shacbiga iyo su-aalahooda inuu ka jawaabo waxaynu doonaynaa isbedelkii aynu soo qaadnay ballantiisa inaynu inaga muuqdo oo shaqadeena ka muuqdo oo xafiisyadeena ka muuqdo oo cadaaladdeena ka muuqdo haddii alla idhaahdo waxaa ilaahay ka barayaa in inoo fududeeyo xilka dhammaanteen idinkana idiin fududeeyo hawsha badankeedu idinkayd ku dhacaysa marka wasaarad kasta oo aynu hawli qaranka 8 wasaaradood baynu ku kooban waa soo raacaya oo waxa weeye qaranku 3 waaxood buu tilmaamay fulintu waa inaga hawsha shacbigu doonayo in la fuliyana waajibka saaran yahay inteeda badan fulinta waaxda kale waa garsoorka oo maanta oo ay ka yahay gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali qaybta kalena waa xeeldejintii oo ah labada gole marka la eego qaybta garsoorka iyo cadaaladdu waa muhiim laakiin adeega 100% dadku u baahan yahay inaga gacanta ku hayn marka waxaynu u baahannahay inaynu dadkana si wanaagsan ugu adeegno saacadaha aynu shaqaynaynana aynu inagu waajibayn inaynu u shaqayno shacbiga inaynu u shaqayno haddayna wax dheeraada ku darayn sharcigu wuxuu inaga rabaa inaynu 8 saacadood shaqayno marka waa in xafiisyadeena ka muuqdaan waynu xisaabtamaynaa waynu isla xisaabtamaynaa waa isdabagelaynaa waxaynu doonaynaa xafiis kasta inaynu ogaano waajibkiisii ma ka soo baxay mise kama soo baxay marka aad iyo aad baa mahadsantihiin